adigu waalid oo saddex mid un baa tahay hadda dad intee dhab waalidiina meesha fadhiya saddex baa tahay ana waalid baan ahay marka saddexdaa qodob markaan sheego midkaa tahay aduu isa soo saar marka waalidku ima inuu noqdo mucallim ama waalidku inuu noqdo askari ama waalidku inuu noqdo mid jilicsan oo muyuuco waxa loo yaqaano aan go'aan qaadan karin ku celiya saddexdaa ina qof walba hadda isgaratay midkaa tahay waalidow adigu mucallin maa tahay mise askari baa tahay mise waxaa tahay qof jilicsan oo xagga loo maro xaggana loogu durduriyo saddexdaa keeta aadin weydiiya saddexda yaa fiican ma waxaa tahay waalid ilmihiisa saaxiib la ah oo markuu soo shaqeeyo ilmihiisa intuu u imaado waxbara ka caawiya cashirada iyo homeworka guriga u yaalla ka caawiya ma waxaa tahay mid la fadhiista oo la sheekaysta ma waxaa tahay mid la xiwaartama oo dood la gala ma waxaa tahay mid dhegaysta oo ra'yigoodana qaata waa qodobo muhiim ah waa qodobo aada muhiim u ah kee tahay adugu marka ma tahay mid wakti u haya ma tahay mid la ciyaara ma tahay mid meelaha ay jecel yihiin geeya ma tahay mid weydiiya waxa ay kala soo kulmeen bannaanka iyo iskuulka iyo yuu saaxiib la yahay iyo muxuu qabtaa kaasi waxaan dhihi karnaa wuxuu odaygan guriga u joogaba waa hal shay waa mucallim inuu yahay sida adigoo galaas dhigaya oo sabuuradii gacanta ku haysa maxaa leeyahay baashii jeestadii camal oo kalaad guriga ka tahay aabba waa noocaa aabba waa noocaa waana aabbayaasha aan jecel lahay inay saasoo kale aabbo walba uu noqdo ani aan nafteyda la jeclaan lahaa ma ihi dabcan laakiin waa saa nafteyda la jeclaan lahaa inuu aabbuhu noqdo mucallim haddaan maanta muxaadaradan wax kale ka faa'iidaysan weyno aan qodobkaa bese ka faa'iidaysanno haddii aadan horay mucallim aabba mucallima aadan horay u ahayn caawa daqiiqadan laga bilaabo maskaxdaada ka shaqaysii noqo aabbo mucallima xaaskaaga kow mucallin horta u noqo waa inaad xaaskaaga mucallim u noqotaa waa inaad carruurtaada mucallim u noqotaa waa inaad carruurtaada saaxiib la noqotaa waa inaad carruurtaada sirtaada u sheegataa waa inaad carruurtaada la sheekaysato waa inaad carruurtaada xiwaar iyo dood la gashaa kaasi waa mucallinka koobaad weeyaan maxaa yeelay xiwaarku waa muhiim jiddan lugatulxiwaar sida loo wada hadlo ama xiwaarka loo wada sameeyo hadda kaasi horta waa qodobka koobaad weeye arju inaan mucallimiintaa noqono